oo ugu horeyso su'aalaha diiniga Anas bin Malik waxa la weydiiyay su'aasha maadada diiniga oo ka jawaabay 2 boond oo helay halka Usman bin Affan oo helay 2 boond ayadana ka jawaabeen physics 2 boond ayuu helay Anas bin Malik iyo Usman bin Affan chemistry sidoo kale Anas bin Malik waxa uu helay 2 boond Usman bin Affan sidoo kale 2 boond ayuu helay aqoon guud labada iskuul ka jawaabeen Anas bin Malik iyo Usman bin Affan ka jawaabeen natiijada qaybta hore 8 lagu kala ay ka keeneen qaybta xigo Anas bin Malik waxa la weydiiyay maadada biology-ga 2 boond ayuu helay sidoo kale Usman bin Affan waxa la weydiiyay maadada biology-ga 2 boond ayuu helay halka Anas bin Malik la weydiiyay maadada xisaabta mathematics ay hareer mareen jawaabtii halka ay ka jawaabeen ay ka faa'iideysteen Usman bin Affan su'aashooda maadada mathematics sidoo kale ka jawaabeen Anas bin Malik maadada basic mathematics way gafeen ayagana halka ay Usman bin Affan gafeen maadada basic mathematics sidoo kale English ayaa la weydiiyay Anas bin Malik way gafeen halka Usman bin Affan ay ka jawaabeen su'aashaas wadarta natiijada waxay noqonaysaa Anas bin Malik oo helay 10 boond iyo Usman bin Affan oo helay 16 boond hambalyo Usman bin Affan وما سيئين